guulaha dagaalka dib xoreynta laga gaaray waxaa ka mid ah oo la dumiyay darbi kale oo shacabka ay ku argagax gelin jireen kooxaha qawaarijta shabaab waxaana weeye in dadka shacabka ah ay kooxaha qawaarijta u diraan lacaga ay ugu sheegaan karfan si ay u soo iibsadaan karfantii lagu duugi lahaa iyagoo ku qalqalgelinaya dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan balse waxay iloobeen in qadarka dhimashada alla gacantiisa ay ku jirto iyagoo taas yaqiinsan ay shacabka Soomaaliyeed iska diideen hanjabaadda daciifka ah ee kooxaha qawaarijta ee dabargo'a ah ay u adeegsanayaan dadka shacabka ah waxaan idinku meesha intaad fadhideen caanaha geelay ku cabi jirteen anigana maanta geedkii aad caanaha geelay ku cabi jirteen fadhiya wax kale uma fadho waa iyaga bisan u fadhiya waxaana ka mid ah dadka diiday lacagta karfanta ay dadka ku cabsi geliyaan Mayra Maxamed Nuur waxa uu ku yiri isoo dira waxaan ku iibsanayaa sonkor karfana ugu soo tuureeyeen isoo badiyaan ee sonkor ama kala baxaan balwad mali laakiin sonkor ama kala baxay isoo badiyaan ku soo tuureeyeen waa soo tuur waxna waa telefiishan iga cararab aniga Allah awood aan ka cabsado maana cid kale ka cabsahay ma jirtaba ma jirto cid aan ka cabsayo ka dambayso Allah awood aan ma jirto mana cabsan waligeey mana cabsan doono dhulka annaga iyo shabaab nama wada qaado waana la dagaalamayna mana sii joogi doonaan taaka kamid ah deegaanadayada waa erayada Mayra laga bilaabo saacadan geedkay galaan waa ka daba galeynaa cid aan ka cabsayna aniga magacayga Mayra Maxamed Nuur oo loo yaqaan Mayra Humbaal ayaa la yiraahdaa ka cid aan ka qarayo male mana gamba waligeena ma gamba mana gamba doono wax aan ka hibaysana ma jiraan aniga shabaab nama wada qaadiyo dhulka mana wada qaadiyo hadda geedi afaro maanay ay ku jiraan hadda saacana geli rabaa dagaalka looga xareynayo deegaanada ay dalka kaga sugan yihiin kooxaha qawaarijta shabaab oo socda muddo ku dhow 4 bilood ayaa waxa laga gaaray guulo waaweyn oo shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku faani karaan iyadoo oo wali socdo qorshayaasha looga xareynayo deegaanada yar ee kaga sugan yihiin dalkeena Soomaaliya Sucaad Cabdi Casiis Daahir warbaahinta qaranka Muqdisho